السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي soo dhawaada maanta waxaan la wadaagayaa cillad i qabsatay oo waqti badan iga qaadatay inaan xalliyo okay so ciladaas ayaa idinla wadaagayaa iyo qaabkaan u xalliyey sidii hadhowta idinka idinku fududaato lacala haddii cilladan oo kale idin soo madha ama idin qabsato si xalkeedu uu idinku fududaado okay so cilladan waa cillad ay ka siman yihiin all PC computeradii weliba kuwii oldig ahaa oo 2000 up to 2009kii wixii ka horreeyey ay ka siman yihiin wayaan okay waa laga yaabaa kuwa dambana inay cilladan oo kale ay yeeshaan laakiin cilladan ayaa la wadaagayaa waa hardware ahaan wayaan cilladan okay so qaabkaan u xaliyey iyo habkaan u maray ayaa idin tusayaa si hadhowta idinkana haddii cilladan oo kale idinku timaado ama idinku dhacdo aad habkaas kale u maraan okay so hadda computerka ayaan arkay asxaabi wax kale maahan computerka markaad daadid computerka markasta wuxuu ku weydiinayaa driver a error okay so driver a waxay tahay waa arkaynaa okay so wuxuu ku leeyahay press F2 to continue or F1 to set up so systemku waa kan okay so marka hore cillad waxaan moodaya inay tahay the CMOS battery okay so battery cusub ayaan soo gaday waan geliyey oo datekii marka hore dateka ayuu weydiinayay iyo wuxuu weydiinayay iyo yeerka dabeeta hadda cilladu ma noqon batterigan maysan noqon cilladu waxay noqotay another problem weyn okay so PC-gan waa 2008 weeyaan Lenovo weeyaan 2008 okay so driver ayaa ku jira so marka wuxuu leeyahay driver A error okay so what's a driver A okay driver A waxay tahay waa arkaynaa okay ka hor dhicmayno okay so haddaa ku dhufatid F2 to continue okay caadi ayuu kugu shidayaa computerka okay haddaa ku dhufatid F1 na wuxuu geenayaa BIOS-ka okay ama BIOS settings ayuu ku qaadayaa so markastoo aan F1 ku dhufto computerka caadi ayuu soo kacaya okay markastoo computerka aan demiyo oo aan soo kiciyana wuxuu i keenayaa driver A error ayuu keenayaa okay so hadda waxaan ku dhufanayaa F1 okay so let me first click F2 waa arkaynaa okay F2 haddaan ku dhufto muxuu leeyahay computerka caadi ayuu soo kacaya okay wax yar ayuu qaadanayaa okay waa aragteen computerka caadi ayuu soo kacaya marka F2 aan ku dhufto okay so cilladan markastoo computerka aan soo kiciyo wuxuu isu saarayaa driver A error okay okay waa aragteen okay waa aragteen computerka caadi ayuu soo kacaya okay diraya okay so computerka waxa uu dirayaa restart ayaan oranaya okay so waa arkaynaa marka computerku soo kaco meesha uu noo qaado okay so normally si caadiga computerka markuu soo kaco bootka waxa laga rabaa fast inuu soo boot gareeyo operating systemka markaasna uu soo display soo saaro window okay so haddii wax cillada ay jidho wuxuu soo saarayaa cillada okay shirqaan yar ayuu wuxuu ku siiyay pip hal pip ayaa yeedhay okay so computerka markastoo uu cod bixiyo wuxuu tilmaamayaa in ay wax ka maqan yihiin waxaa ka maqan wax noqon karaan driver hardware si okay anything okay so waxun ayaa ka maqan waxun ayaa booskoodii ka maqan markastoo computerka ku aragtid qaylo yar dhiiq ku aragtid waxun ayaa booskoodii ka maqan so hadda computerkan hard drive-ku ku jiraa laakiin wax ayaa booskiisi ka maqan waxa booskiisi ka maqan ayaa rabnaa soo ogaan okay so hadda waxaan ku dhufanayaa F1 to go BIOS setup okay BIOS-ka ayaa tegaya F1 ayaa ku dhufanayaa so BIOS-ka waa imid okay so date and time-kii waa saxan yihiin okay so 2122 ayaan maanta waa Saturday xilliga aan duubayo okay so computerka batteriga yarka cilladu ma ahan oo kama maqna okay so waxaa imaanaya meesha ku qoran tahay device okay device ayaan imaanayaa so device markaan imaado floppy disk driver setup ayaan tegaya okay maxay tahay tan okay computerada hore 2008kii wixii ka horreeyay waxaa la isticmaali jiray floppy driver setup okay so kan ayaan fiirinayaa bal okay so asagaan ku dhufanayaa so asaga markaan ku dhufto waxaa ii soo baxay driver A ayaa ii soo baxay okay
so driver a gan ayaa waxa ka dhigaya disable. Okay, so cilad waxa weeyaan driver a ayaa ka maqan booskiisii. Okay, so driver a ga floppy disk waxa lagu bedelay hard drive ayaa lagu bedelay. Okay, so weli waa on, so waxa ka dhigaya off ayaan ka dhigaya. Okay, waxaan dooranayaa disable, dabeed waxaan ku dhufanayaa okay. So markaan kan disable gareeyo oo ii disable gareysan yahay, waxaan ku dhufanayaa save oo ah F10. Okay, so F10 ayaan ku dhufanayaa, computerka save gareynaya. Okay, hadda computerkan uu soo kacaya, restart ayaa isku diray. So waxaan eegaynaa inuu qayladii bixiyo ama inuu shaashadii ii keeno. Okay, ama inuu automatically window-ga uu soo qabsado. intaas ayaa kala ogaanana. So automatically window-ga ayuu soo qabsaday, that means floppy diski ayaa on ahaa. So waxaan u baahnaa keliya in floppy diskiga aan disable ka dhigo, maadaama floppy diski computerkan isu ku jirin oo hard drive keliya uu ku jiro. Okay, so haddii ciladan oo kale soo madho ama cilad la mid ah oo xagga bootka computer bootkiisa ah, waxa inta badan xoog ka saadaan inaad fiirsaan in computerku uu sound bixinayo ama cod computerka ka dhex imaanayso. haddii cod computerka dhex imaanayso, that means hardware ayaa meesha ka maqan. so hardwarekaas isku day inaad soo gelisid ama isku day inaad disable ka dhigtid si computerkaagu markaas uu caadi ugu soo kaco ama computerkaagu si normal ah uu soo boot gareysmo ama bootkiisu normal u noqdo. Okay, sidoo kale ciladu marka qaar wuxuu noqon karaa baterigan yarka, so baterigan yarkana uu ku sheegayaa oo CMOS baa lahaa, uu ku soo display garanaya as message. Okay, so maanta intaas ayaan la wadaagayay, oo mahadsantihiin. so hadday u baahan tahay inaad barataan hardware, computer software installation, everything, and you can request. Okay, waa soo codsan karnaa qaybta commentiga, waxa kusoo qoraa ha yes intaa kusoo qora. Okay.